nimankii markii saas yeeleen ninkii bistooladii madaxay intuu qabtay markuu xanaaqay bistoola laftaan horay waan ku tusayaa hadhow video waan soo galaya laftaan horu saas intuu iga garaacay laftaan horay jibiyay laftaas marka dhiiga xaamilana waan ahay firbilo dhiig saas intuu booday ilaa spinal ku galay ani meeshaas ku suuxay xasbunallahu wa ni'mal wakiil waa hooyo Soomaaliyeed oo uur lahayd ninkeeda ayaa u ballamiyay niman kale sida ay kufsi ugu geystaan xaaskiisa isaga oo danaynaya kaliya in uu ilmihiisa ka qaato waxa uu ii soo diray ayay tiri niman isagu waxa uu joogaa marka hotel ku yaala magaalada Muqdisho anna Muqdisho ayaan joogaa ayay leedahay hooyadan Soomaaliyeed oo dhibaatada fasaxun loogu geystay Muqdisho mid baa bistoolad madaxa iiga dhuftay ilaa laf dhabarta marka ayaa miil igu dambaysay ayay tiri xasbunallah dayniila ayaa dhibaatada la igu geystay ayay leedahay hooyadan Soomaaliyeed waxaana u geystay arxanlaawayaal aan ku jirin dhiig Soomaaliyeed iyo ninkeeda oo iyaga lamida xasbunallah xogta hooyadan Soomaaliyeed ee dhibanaha ah ayaan warbixinteenan ku saari doonaa diiradda haddii aad tahay shakhsi jecel hooyadiis walaal hooyadan waa hooyada oo kale sida ay cadaaladda u hesho muuqaalka laysaar oo la wadaag saaxiibadaada ku mahadsanid daawadaha dhiigga damqanaya ee Soomaaliga uu ku jiro kuna soo biir baraheena bulshada ee ducaysana meediya mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeena ducaysana meediya iyo beejkeena ducaysana meediya oo alaaba aan idinkugu soo gudbinno warbixinada markaasi baraha bulshada laga hadalhayo waxaan saaxiibayaal maanta warbixinteenan ku qaadaa dhigi doonaa dhacdo aad iyo aad u foolxun isla mar ahaantaana laga argagaxo oo lagu sameeyey si foolxun loogula kacay hooyo Soomaaliyeed oo markeedii ugu horreysay ka soo safartay cariga dalka Kenya isla mar ahaantaana soo gaartay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ilmo uu haysay mid ka mid ah ragga Soomaaliyeed ninkeedii ayaa waxa uu u soo diray niman kale sida uu uga qaato carruurta oo kaliya waxa ay ku sameeyeen kufsi waxa ay madaxa uga dhufteen bistoolad laf dhabarta ayay bistoolad mar kale uga dhufteen saaxiibayaal oo xabadna aysan ku ridin balse uur ayay lahayd waa ay miir daboolantay kadibna waa ay kufsadeen arxanlaawayaashan aan ku jirin dhiigga Soomaaliyeed balse nala wata magaca Soomaaliyeed haddaba daawada ila daawa muuqaalkan kooban ma baxayo idigu dilaan ku dhaw wiilkan carruurta laga qaatay marka midkii qori hayste cunug ila dagaalamay markaasuu qori dhuuntisaas iga geliyay kan xiiray la dhahay qori dhuuntisaas iga geliyay taas markaan iska tuuray saddex laba ka baxday haye markii saabada binay isku baxdayna qori markii ka baxday sagna uu isku naxay cunugu keen uu dhahay hadii kale waan kugu dhufanaya ninkii kalena oo la kila day gadaashiisu taagan toogo maxay ka yaqaano ninkaagi weeyay ninkii la kila dhahay ma ninkay baba jooga asaga niman soo dirsaday inta hotel wehliye iska aade wuxuu leeyahay sanin naftayda haday aragto haday isu soo wato jilbi iriga tan waa raacaya laakiin idinka taga haye wuxuu dhahay nimankii markii saas yeeleen ninkii bistooladii madaxay intuu qabtay markuu xanaaqay bistoola laftaan horay waan ku tusayaa hadhow video waan soo galaya laftaan horu saas intuu iga garaacay laftaan horay jibiyay laftaas marka dhiiga xaamilana waan ahay firbilo dhiig saas intuu booday ilaa spinal ku galay ani meeshaas ku suuxay haddii aad tahay shakhsi Soomaaliyeed uuna ku jiro damiirka Soomaaliyeed uuna ku jiro dhiig Soomaaliyeed jecelna hooyooyinka Soomaaliyeed sida aad u jeceshahay daawada hooyada oo kale muuqaalka laagare siduu u baaho isla mar ahaantaana cadaalad ay u hesho hooyadan Soomaaliyeed ee dhibaatada faraha badan lagula kacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku mahadsanid daawade tan iyo kulanti dambe nabaadiino